wafdigu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal. Wafdigani oo ujeedada socdaalkiisu daarneed ka qaybgalka xafladda qalinjabinta jaamacadda Eelo ee magaalada Boorama. Wafdigani oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa lagaga hortagay duleedka magaalada Boorama halkaas oo si diiran ugu soo dhaweeyeen maamulka gobolka Awdalka degmada Boorama. Waxgarad iyo aqoon-yahan tiro badan soo dhaweyn kadib waxa uu wafdigani kormeer ku tagay dhismayaal jaamacadda Eelo ka hirgelinayso gudaha magaalada Boorama waxaana halkaasi uga warbixiyay dhismayaashani iyo sida ay u isticmaali doonaan gudoomiyaha jaamacadda Eelo Maxamuud Ciga Yuusuf. Inta kadib wafdigani ayaa u soo kicitimay hotel Haldoor ee magaalada Boorama oo loo qoondeeyay munaasabadda qalinjabinta ardayda dufcaddii 8aad ee jaamacadda Eelo oo ay ku qalinjabinayeen 305 arday oo dhameystay kulliyadaha kala duwan ee lagu barto jaamacaddaasi. waxaana halkaasi kala soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici xubno ka wasiirka agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska xubno ka socday labada gole maamulka gobolka Awdalka degmada Boorama waxgarad aqoon-yahan iyo waalidiin. inta kadib waxa hadalka ugu horeyn qaatay madaxweynaha jaamacadda Eelo Maxamuud Ciga Yuusuf isagoona tilmaamay marxaladaha ay soo martay jaamacadda iyo ardayda ka qalin jabinaysa waxana uu yiri 2007 ayaa la furay maanta 12 sano ayay jirtaa maantana waa sanad guuro kale waa milestone kale oo waxaan u dabaaldegaynaa dufcaddii koowaad ee ka qalin jabisay barnaamijka heerka labaad ee jaamacadda. xafladan qiimaha leh dufcaddii 8aad ama baajkii 8aad ee digriga koowaad ee jaamacadda Eelo arday ka qalin jabinaysa iyo dufcaddii koowaad ee heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda Eelo. sidoo kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jabisay iyo sidoo kale mas'uuliyiintii ka soo qayb galay waxayna dhamaantoodna sheegeen waxaan barnay maanta anagu waxaan ku qaatay masterka waxa la yiraahdo MGE Master of Governance and Ethics dawladnimada ama dawlad wanaaga iyo dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda. waxaan leeyahay haysoonana kaliya ma aragtay jaamacadii wad dhameyseen waxbarashada wad sii wadan karaysiin adas bari karaya jaamacadda Eelo waa sida laga waramay bulshadu way og tahay oo way ka dheregsan tahay ardayda ay soo saaraan iyo tayadoodu heer ku gaarsan yahay. mas'uuliyadda ay hayeen baan qirayaa aqoontan maanta Eelo ay ka soo kordhiseen inay wax ka tariso runtii wax badan oo naga qabyaha inay maanta macallimiinta jaamacadda Eelo inay u dhameystireen baan qirayaa maanta waxaan ogahay dadka tayada leh ee halka ka soo baxay sida isku biirbiirsadeen. maanta halkan waa xano farxada inaan ka soo qayb galo jaamacadda Eelo qalin jabinta ardayda jaamacadda Eelo marka hore ardayda waan u hambalyeynaya gaar ahaan waan aad ugu sii hambalyeynaya ardaygii halka ka hadlay oo hadal fiican oo runtii xigmadaysan ku hadlay. maanta waxa weeye maalin farxadeed la hadalka ku badin maayo mar labaad iyo mar saddexaad oo idin hambalyeynaya maalintan quruxda leh qiimaha leh jaamacaddan iyo maamulkeeda iyo idaaraddeeda. runtii waxaan leeyahay marka hore hambaliyo waxaan aad iyo aad u hambaliyeynayaa oo mudan in la hambaliyeeyo waalidiintii dadaalka badan iyo juhdiga badan in soo galiyay ee waliba in suura galiyay inaad maanta qalin jabisaan. mar labaad iyo mar saddexaad ardayda waxaan leeyahay hambaliyo waalidiinta waxaan leeyahay hambaliyo madaxweyne ku xigeen waxaan kugu soo dhaweynayaa sharaftan ama maanta qalin jabinayso jaamacadda Eelo. ugu dambeyn waxa hadalka soo gabagabeeyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici isagoona hadallo dhiirigelin iyo dardaarana siiyay ardaydani ka qalin jabisay jaamacadda ayaa waxa uu yiri ardayda oo maanta kuwa maanta xafladda iyo maartay ururkani aan isku nimidnay iyaga loo dabaaldegayo idin waxaan leeyahay laba arrimood mid waa hambaliyo oo idin hambalyeynaa Allah idin barakeeyo leenahay mid oo idin duceeyna waxaan leenahay mustaqbal wanaagsan iyo idin rajeynaa. waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.